halkani ma aha Mumbai iyo New Delhi ee waa magaalo madaxda caasimadda Muqdisho. libaaxayga iska celi ninka waan ku kalsoonahay libaaxayga ninka iska celi libaaxayga iska celi libaaxayga waan ku kalsoonahay yes libaaxayga yes libaaxayga waa koox dhalinyaro ah oo ka kooban ilaa 4 qofood waxayna ku haminayaan inay la mid noqdaan jalayaasha caanka ah ee Hollywood iyo Bollywood. Deeq Diamond waa aktarka iyo isudabaridaha filimkan matalaada ah wuxuuna inooga sheekeynayaa halka uu filimka ka soo bilaabay jilitaankiisa iyo halka uu hiigsanayo. horta marka hore sadafka joojire inkastoo niideeda macnaha waqti waa u waayay ama jaanis aan ku sameeyo aflaanta walow niida ka jeclaa dabadeed Muqdisho soo laabtay waxaan fiiriyay dadkii dhan fan iyo wax bay ku mashquulayeen inay hees qaadaan qof walba soo aniga talentigeeda wuxuu ahaa inaan actionisto ama bulshada ama fiiri waxyaabo soo bandhigo sida tooriyaasha caalamka oo kale Bollywood oo kale ay ka xiiseeyaa walow aan ku dayanayo tar qaar sida Tiger Shariif iyo Commando Mutum qof waxba ku dalbaa macnaha jigli ijiga xataa waa macnaha waa ku dayda soo marka waxaan go'aansan inaan film sameeyo ama team asmeesto teamkaas soo marka garbihi mar walba garabkayga ah aan wax soo sameyn karno waan isku dayay bulshada horta aqoon badan kala kulmay dad qaarkood way amaanayaan qaarna waxa way qalbi qaarna hor u socdahayaan way ugu taageerayaan waxaan macnaha ka dhaadhiciyay in loo baahan yahay in walow ay haysan wakaalad filmaanta ama dhan macnaha madaxda kale xaqooda aan keenin garab buuxda oo ah in macnaha nolol maalgeliyo kale ama kabad nolol sameeyo kale balse shakhsi ahaan dhalinyaro ahaan aad ku aruursanay anagoo ah ilaa 7 qofood oo kale gabdho iyo wiilal waxaan bilaabnay in aflaanta markaasaan horumar aan ugu sameeyno caalamkana aan tusino waxaan gacali saas ayaa ka arba wax iska dhixsan ninka baabe yow gadan aniga boqol kuma dagaaltamo shantan ay aaminsanaa weligay ma qaban Maria waa gabadha kaliya ee filimkan ka soo dhex muuqatay waxayna ku jilaysaa doorka atriishada haddaba caqabado nooce ay haweenka Soomaaliya jooga kala kulmaan jilista akshimada inkastoo aniga reer Muqdisho ahayn oo reer Carabta ahay inkastoo Muqdisho dalkayga waaye weligeen waxa ku riyoon jiray marka Muqdisho tago ilaa yaraanteedii waxa ku riyoon jiray marka Muqdisho tago inaan noqonayo aktarad wadanka noqonayo ilaahna waa ii suurtageliyay maanta waxa ahaa aktarad way jiraan caqabada kala kulmay waqtigeyga geliyay dhaawacyo waa arkay anoo action jilaayo anoo tacbaan dad wax u soo gudbinayo hergab yahay hal san xiran yahay jilbiyo xanuunaay aan dhoobo dhigaa afgooy filmaan aan ku soo qabanayo dhooba dhigay dhoobo dhulka mana ma dhigi kari man rabo bulshada camera ugu socoto in la dareemo adafkeyga inaan gaar darteeda shib u ahay dhalinyaradani waxay hardan dheer ugu jiraan inay noqdaan aktarro dunida laga yaqaan in ay heerkaas gaaraanna waxay u mutaan dhibaatooyin badan Umar Oscar iyo Nursaki waa labada wiil ee Deeq Diamond la waday filimkan matalaada ah balse duubidiisa ay hadda soo socoto bulshadana ay goordhow u soo bandhigayaan waxayna inooga sheekeynayaan meesha ay ka soo bilaabeen hawshan ay xilligan hayaan iyo hadii ay hore ugu soo muuqdeen aflaan kale oo caalami ah filim caalami ah oo soo muuqday waa 2010kii ayuu ahaa markaas Mombasa lagu jilayay waa filim Chinese ah sida xogta lagu sheegay markaas ay tahay in aniga qaybtaas aan ka ahay kuwii kooxdii markaas oo rabtay inay soo badbaadiso kuwii afdubnay in markaas aniga aan sahmiyo aan u sheego ciwaanka addresska markaas aan u gudbiyo jilida akshimada waqti hore aan ku soo biiray 2012kii hobigeygan uu yahay inaan actor aan noqdo oo sidoo kalena wadankiisa laga aqoonsan yahay haddii aad daawan jirteen akshimo ay sameynayaan actor caan ka ah dunida kuwani waa Soomaali waxaa idinkaga digayaa inaadan sameyninaha haddii aadan qabin tababar buuxa oo noocan oo kala ah Safiya Ismaan Cabdulle 5TV magaalada Muqdisho.